السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكا أنا قد داونيسان وا جانا قال فور اوفيشال هدان ugu cusubtayna subscribe like share comment inta baa xaqiini walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan gaarsiin kara meesha aan doonayno balse laakiin walaalaheena Soomaalidu way ina gaarsiin karaan caawa maxaan idin sidaad wada ogtiin ayaan taanba waxa socday baraha bulshada ka socday dagaal u dhaxeeya Daahir Calasow iyo Sharma Boy. Haddaba Sharma Boy ayaa waxaa la soo hordhigay dalab ah in show lagu qabanayo Nairobi uu ka qayb galo. Showgaasina waxaa wada fanaaniinta kala ah Xariir Axmed, Ilkacsi Qays, Sharma Boy iyo ninka la yiraahdo Maslax Mideeye iyo Suldaan Seeraar. Dalabkaasi haddaba iyo fanaaniin kale dalabkaasi haddaba la soo hordhigay Sharma Boy uu ka biyo diiday. Isagoo dalabkaasi gaashaanka u daruuray wuxuu yiri ma aadayo mana u socdo meeshaasi. waayo ayaantan ayaa yacni mataqaanaa baraha bulshada ka socday dagaal u dhaxeeya Daahir Calasow iyo asxaab joogta magaalada wadanka Kenya ee magaalada Nairobi. Haddaba Sharma Boy wuxuu yiri kama qayb gali doono taas oo asxaabtiisina ay ku waaniyeen inuu ku wargeliyeen inuusan aadin showgaasi. Sharma Boy commentigiisa baraha bartiisa YouTube-ka ayuu wuxuu soo dhigay qoraal aad u dheer taas uu kaga hadlayay inuusan ka qayb gali doonin showgaasi lagu qabanayo magaalada Nairobi. Haddaba Sharma Boy dalabkaasi la soo hordhigay maxaa ulajeedadiisu uu yahay balse fanaaniinta soo hordhigay maxay ulajeedkooda ahaa iyagoo og oo ka warqaba in baraha bulshada dagaal uu kaga socday Daahir Calasow iyo Sharma Boy. malis oran karaa shirqool ayay maleegayaan, malis oran karaa heshiisiin ayaa meesha ka dhici doonta. Haddaba wixii faahfaahin ah ama wixii ra'yigaaga ah noogu reeb commentiga. Sharma Boy ma ku saxsan yahay dalabkaasi uu diiday taas oo taageerayaashiisu ay u soo jeediyeen in uusan ka qayb galin showgaasi. Haddaba fanaaniintaasi kala ah Xariir Axmed, Ilkacsi Qays, Sharma Boy iyo Maslax Mideeye iyo Suldaan Seeraar iyo fanaaniin kale oo caan ah. Haddaba sidaan wada ognahay Sharma Boy magaalada Nairobi waa magaaladii looga qaatay YouTube-kiisii password-kiisa. ma ku dhiiran karaa in uu halkaasi show uu ku qabto mise tegi karaa halkaasi isagoo ay joogaan dadkii shalay toole password-kiisii qaatay ee gacanta u geliyay Daahir Calasow. haddaba walaalayaal fikradaadu waa noo muhiim, commentiga noogu reeb wixii aad ka qabto. waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada isku hayo, baraha bulshada ma aha maxkamad, ma ahan goob la isku dagaalo. waad ogtiin wadankeena dhibka iyo qalalaasaha uu ka socdo, maadaama maanta aan horumar ka sameynayno baraha bulshada inaan isku qabqabsano maaha. waxaa baraha bulshada isticmaala ay dowla ee adduunka ah. haddaba laba isqabsata ama laba isdagaasha lama arkayo. maxaa ku kalifay Soomaalidu in ay isku dagaalaan baraha bulshada? waxaan maqli jiray toogsato tubta iyo isku nacdaa. haddii maanta lagu oran lahaa lacagta uu ninkan ka sameynayo YouTube-ka bixi maxaad sameyn lahayd maanta oo lacagtaasi uu bixinay nin cadaan oo gaal ah? walaal waxaan idiin sheegayaa dhalinyarada Soomaaliyeed in aad ku walaalowdaan meel walbo aad joogtaan, sida baraha bulshada magaalada wadamada kale aad ku nooshihiin waad inaad isku walaalataan ay walaalo aad ku noqotaan maahan inaad isqabqabsataan. walaalayaal waxaan idinka codsanayaa dadka isticmaala baraha bulshada inay arrintaasi guddi u sameeyaan. haddaba ay labadaasi qof ee walaalaha ah iyo dadka Nairobi jooga ee yacni Sharma Boy YouTube-kiisa gacanta u geliyay Daahir Calasow in la walaaleeyo, la heshiisiyo. baraha bulshada waxaan ka codsanaynaa dadka ku jiro inay sameeyaan guddiyo dhexdhexaadin. haddaba walaalayaal waxaa la sameeyaa sidaadaba laba qof markay isdagaalaan dhexdooda dab lagama sii shido ee waa in dabkaasi la damiyaa. halka aad naga daawanaysaan waa Jana Gala for official. walaal like-ta iyo share-ta commentigan ha naga iloobin. sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.